مصر waa dal lagu sheegay qur'aanka sidoo kalena ay ka soo jeedaan ambiyo fara badan nabiyullaahi yuusuf haaruun iyo muuse calayhi salaam waa dal ku yaala waqooyi bari qaaradda afrika iyo koonfur galbeed qaaradda eshiya waana dal transcontinental ah maadaama dhulkiisa uu ku fidsan yahay laba qaaradood masar waa dal leh taariikh hodan ah iyo ilbaxnimo aad u fog oo ay ka mid yihiin ilbaxnimadii faraaciinta giriigii roomaankii iyo khilaafooyinkii islaamka sooyaalkii hore sida taariikhyahanadu tilmaameen ilbaxnimadii faraaciinta waxa ay ka jirtay dhulkan qiyaastii 3,000 oo sano ka hor taariikhda milaadiga waxa ayna ka tagtay dhaxal weyn oo taariikheed oo ay ka mid yihiin ahraamta masar iyo qoraalada daahsoon ee hieroglyphics-ka faraaciintu waxa ay ahaayeen boqortooyo awood leh oo xukumaysay dhul ballaaran oo ku teedsan hareeraha webiga niil miilaadiga ka hor sannadkii 332 masar waxaa la wareegay boqorkii giriiga ee aleskandar dagareed wuxuuna aasaasay magaalada caanka ah ee aleskandariya intaas kadibna masar waxaa sii xukumayay janankiisii ciidanka oo lagu magacaabi jiray batolemy wuxuuna aasaasay boqortooyo isaga ku abtirsata oo la yidhaahdo Ptolemaic Dynasty qarnigii koowaad ee miilaadiga ka horna masar waxa ay noqotay gobol ka tirsan boqortooyadii Roomaanka waxa ayna ahayd meesha ugu muhiimsan oo ay Roomaanku ka soo saari jireen raashinkii ay ku tiirsaneyd Rooma kadib burburkii boqortooyadii Roomaanka masar waxa ay hoos tagtay xukunkii boqortooyadii Byzantine oo ahayd Roomaankii bari qarnigii toddobaad ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayay Camar bin Caas ayaa galay Masar waxa ay noqotay qayb ka mid ah khilaafadii islaamka intaas kadib Masar waxaa soo maray maamulo kala duwan oo muslimiin ah oo ay ugu caansan yihiin khilaafadii Umayyadeed Cabbaasiyiinta Ayyuubiyiinta iyo Cusmaaniyiinta kuwaas oo dhulkan ka talinayay muddo ku dhow 13 qarni masarta casriga ah waxa ay bilaabatay kadib markii uu qabsaday Maxamed Cali Baasha oo ahaa wakiilkii Cusmaaniyiinta waxa uu xukumayay Masar intii u dhaxaysay 1805 ilaa 1848 kadib geeridiisii waxaa taladii dalka la wareegay hogaamiyeyaal kala duwan oo ay u badnaayeen wiilashiisa ilaa laga soo gaaro 1882 markaas oo uu Ingiriisku qabsaday waxa ayna ku hoos jirtay gacantii Ingiriiska ilaa bilowgii qarnigii 20aad masar waxa ay xornimada ka heshay gumaystii Ingiriiska sanadkii 1922 balse Ingiriisku waxa uu saameyn ku lahaa arrimaha siyaasadda iyo kanaalka Suez Ingiriiska kadib waxa taladii qabtay boqor Fuaadkii koobaad isagoona aasaasay boqortooyo cusub boqortooyadu waxa ay la kulantay mushkilada dhaqaale iyo faragelin shisheeye kadib geeridiisii xukunkii waxa la wareegay wiilkiisa oo ah boqor Faaruqi koobaad sanadkii 1936 isagoona noqday boqorkii ugu dambeeyay ee xukuma Masar kadib dhibaatooyin dhaqaale iyo guuldarooyin ciidan oo ku yimid gaar ahaan dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee 1948 arrimahaasi waxa ay weeqeen sumcadiisii taas oo horseeday kacdoonkii dhacay 1952 kacdoonkaas waxaa hogaaminayay saraakiil dhalinyaro ah oo ay hormuud u ahaayeen Jamaal Cabdinaasir iyo Maxamed Najiib iyagoona meesha ka saaray boqortooyadii waxaana 18 Juun 1953 lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Masar iyadoona Maxamed Najiib uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Masar balse awoodii waxa si tartiib ah ula wareegay Jamaal Cabdinaasir kaas oo noqday madaxweynihii labaad sanadkii 1956 Jamaal Cabdinaasir waxa uu ahaa hogaamiye aaminsan mabda'a carabnimo iyo qoominimo isagoona qaatay go'aankii taariikhiga ahaa ee qarameynta kanaalka Suez kadib geeridii Jamaal Cabdinaasir sanadkii 1970 waxaa taladii la wareegay Anwar Saadaad waxa uu bedelay siyaasaddiisii dibadda isagoona hogaaminayay dagaalkii loo yaqaanay Yoomu Kibar ee dhacay 1973 dagaalkaas oo ay Masar iyo Suuriya kula dagaalameen Israa'iil
guulahaas militari waxa ay sare u qaadeen sumcadiisii balse heshiiskii Camp David ee uu galay 1978 iyo saxiixii nabadda Israa'iil ee 1979 ayaa keenay muran weyn oo carabta dhexdeeda ah. ugu dambeyntii Saadaad waxaa la dilay 6 Oktoobar 1981 intaas kadibna xukunkii waxaa la wareegay Xusni Mubaarak oo talada hayay muddo ku dhow 30 sano. ugu dambeyntii kacdoonkii la magac baxay Gugii Carabta ayaana sababay in uu xilka ka dago. kadib xilka waxaa qabtay Maxamed Mursi isagoona noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo doorto, balse maamulkiisii ma sii raagin. Cabdifataax Siisi oo markaas ahaa wasiirkiisii difaaca ayaana awoodii Afgembi kula wareegay. tan iyo markaas Siisi ayaana noqday madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Masar. Masar waa dal jamhuuri ah lehna madaxweyne iyo baarlamaan, waxa ayna door muhiim ah ku leedahay siyaasadda Carabta iyo Afrika iyadoona xubin ka ah ururka Jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika. Masar waxa ay xuduud la leedahay dhanka waqooyi badda Mediterranean-ka, waqooyi bari dhulka Falastiin ee la haysto, bari badda Cas, koonfur Suudaan iyo galbeed oo Liibiya ah. sidoo kale dalkan waxa uu xuduud badeed la wadaagaa dalalka Urdun iyo Sacuudi Carabiya, gaar ahaan gacanka Caqaba oo dhaca aag juqraafi oo muhiim ah. sidoo kalena aaggan waxaa ku yaala kanaalka Suways oo ah mid isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Cas, waxa uuna door muhiim ah ku leeyahay siyaasadaha caalamiga ah, gaar ahaan xilliyada dagaalada iyo xiisadaha gobolku ay socdaan. dalkan waxaa si weyn loogu tixgeliyaa in uu leeyahay ciidanka ugu tirada badan qaaradda Afrika, kuwaas oo ka kooban ku dhowaad 1.2 milyan oo askari marka la isku daro askarta shaqaysa iyo kuwa kaydka ah. inkasta oo uu leeyahay ciidan aad u badan iyo marino muhiim ah, haddana waa mid aan saameyn buuxda ku lahayn gobolka uu ku yaalo dalkan. badka dhulka Masar qiyaastii waa 1 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool ku dhowaad 110 milyan oo qofood. waana dalka saddexaad ee ugu tirada badan qaaradda Afrika marka laga reebo dalalka Nigeria iyo Ethiopia. luuqadda rasmiga ah ee dalkan waa Carabi, gaar ahaan lahjadda Misriga ama lahjadda Ahmiyada oo si weyn looga yaqaano dalalka Carabta. diinta rasmiga ah ee dalkan waa Islaamka, gaar ahaan Sunni, balse waxaa jira wax ka yar 10% oo ah Masiixiyiin Qibdiyiin, kuwaas oo taariikh dheer ku leh dalkan. Qaahiro waa caasimadda dalkan, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan caalamka. kaliya waxaa ka dad badan magaalooyinka Tokyo, Delhi, Shanghai iyo Dhaka oo Bangladesh ah, iyadoona dadka ku nool lagu qiyaaso 23 milyan oo qofood marka la isku daro dadka ku nool gudaha iyo hareeraha magaalada. webiga Niil waa laf-dhabarta nolosha dadka ku nool Masar, waana webiga ugu dheer caalamka, kaas oo dhererkiisa lagu qiyaaso 6650 kiiloomitir, wuxuuna maraa dalal badan oo ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Suudaan, ka hor inta uusan ku dhammaan xeebaha dalka Masar ee badda Mediterranean-ka. ku dhowaad 90% oo ah dhulka Masar waa saxare lama degaan ah oo ka mid ah saxaraha Afrika. kaliya 10% oo ah dhulka ku hareeraysan webiga Niil ayaana ah mid ku habboon tacbashada iyo wax soo saarka kala duwan ee dalagyada. dhaqaalaha dalka Masar waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, dalxiiska, kalluumaysiga, warshadaha, ganacsiga iyo marinka muhiimka ah ee kanaalka Suways oo ay balaayiin dollar ka soo gasho sanadkii. fanka Masar waxa uu door weyn ku leeyahay dalalka Carabta, gaar ahaan dhinacyada riwaayadaha, filimada iyo muusiga. laga soo bilaabo qarniga 20aad, Masar waxa ay noqotay xarunta ugu weyn ee soo saarta filmaanta Carabta, iyadoona 70% aflaamta Carabeed laga soo saari jiray dalkan. sidaas darteed ayayna magaalada Qaahiro ku kasbatay naaneysta ah Hollywoodka Carabta. aktarada ugu caansan ee jila aflaamta Masar waxaa ka mid ah Caadil Imaam oo loogu yeero boqorka kaftanka, Omar Sharif oo ku caan baxay doorkiisii filimka Lawrence of Arabia, Ahmed Zaki, Fatin Hamama iyo Sucaad Xusni.